maanta waxaan gudagelaynaa cashirkeenii afraad ee mechanics of Somali. taariikhda maanta waa 28 bisha 2019 waxaan ku jirnaa waan gudaha u gelaynaa topic-ii ahaa resultant. intaan cashirka gudagelin waxaan jeclaan lahay horta hore inaan aad iyo aad u mahadceliyo dadka dhiirigelinta igu wado ee asxaabta ka mid ah. aad iyo aad u mahadsantihiin. insha Allah waan sii wadayaa inta karaankeyga ah. cashirka haddii aan usoo gudagalno resultant topic-ii first topic mechanics waxaan gelaynaa example-kiisa labaad. resultantin insha Allah example-kan ayaan noogu dambeeyo. waxaan isleeyahay waa inta kale waa ku filnaan doontaa oo labada example waaweyn anagoo isku dayayno wax inaan memorize macnaha soo koobno summarize ku sameyno. marka insha Allah example 2 wuxuu noqonayaa determine the resultant of the force. soo raadi resultant of force, that means waxaa waaye r soo raadi. okay, and it is direction macnaheedu waxaa waaye tiitadeeda soo hel. waxaa laga diray resultant of the force iyo direction, labadaas ayaa laga diray. insha Allah inta aanan soo helin resultanti waxaa horena usii sheegay cashirka hore noo sheegay aad iyo aad ayay u fududahay in macnaha la helo resultanti, laakiin xoogaa yar waxaa adkaanayso. waxaa jiro forcigan markii oo qalooco oo resultantiga uu yahay. marka insha Allah forcigan oo kale 600 waaye. kan directionkiisa waxaa weeye directionkiisa dhankan u socdaa oo tension waaye. forcigan ka tagnay directionkiisa tension. marka waxaa adkaanayso waxaa fududaanayso in macnaha la sameeyo. marka hore waxaan doonaynaa inaan gacanta ku shaqeyno maadaama dad qaar ay dhaheen waxaa wanaagsan inaad shaqada macnaha nala wadaagto. resultant markaasoo helayno insha Allah. hadda kan oo kale falaartani waa falaar macnaha meeshan o aan iska dhahno ama originka dhahno. falaartan originka way ka baxaysaa. that means falaartan originka haddii ay ka baxayso ama ay ka tagayso waa tension wey. tension haddii ay tension yihiin waxaan doonaynaa marka inaan sameyno falaar taagan iyo falaar jarjarta. that means vertical force iyo horizontal force. see noqonaya haddii vertical force-ga waa inuu tension noqdaa, horizontal force-gana waa inuu tension noqdaa. ma fahanteen? marka inta waxaa taalo tiitadii. meesha tiitada taalo waxaan soo qaadanayaa loadkan. meesha tiitada taalona waxay noqonaysaa cos. tiitada aan haysano waa 30 degree. simple. inta imaaw loadka soo qaado. loadka loadka soo qaado waa 100. okay, cos haddaa qaadanaya cos qaado. meeshan 30 waaye meeqaa ka dhimin oo 90 noqdo 60. simple. cos 60 degree ama sin 30 degree isku meesha waa saan shirka hore u sheegnay. okay, kan imaaw kan originka ayuu soo galaya. that means waxaa weeye compression. waa compression force waa 200 oo originka soo galaysa. waxaan sameynaynaa iyadana laba falaar aan ka sameynaynaa. labada falaar waa inay originka soo galaan. waxaa weeye laba falaar aan sameynaynaa. waa tanaa mid saan u jiifto oo originka dhankiisa u socoto iyo mid saan usoo galayso iyadana. okay, meeshaan waxaa weeye 200 cos 60 degree ama waxaa lamida 200 sin 40 degree. okay, intana waxaa weeye 200 cos 40 degree. sima iyadana ku dhawey 200 cos 40 degree. marka kan imaaw waa arki kartaan hadirtaan. kan imaaw kan waxaa weeye originka waa kana kusoo tegaya tension wey. maadaama ay tension tahay iyadana waxaan sameynaynaa symbol sida tan oo kale. waxaan sameynaynaa xabad
laba xabo oo iyadana tension. So haddana sorry kan 400 waaye 400 cos 60 degree iyo 400 cos 30 degree. Okay, kan markaan cos ku sameynayno si macnaha baasha aan example ka duwan u dhigno midda kale kan waxaa weeye compression, kan compression waaye kana tension wey. So maxaan sameynaynaa laba filaaroodoo compression oo soo gelaya. So loadkan maanan siinin ukaadi weye loadkan fiirino. Loadkan waxaa weeye 300 newton. So waxaa u baahanaa markaa kan maxaa noqonaa 300 saanaan ka dhignaa dhaka 300 sin 50 degree 300 sin 50 degree. kan waxaa noqonaa 300 cos 50 degree. macnaha kuwan cos ku wada shaqeeyay no problem. hadda kan waa kala duwan cos iyo. So hadda marka maxaa u baahanahay resultant yaa laysoo diray. resultant saa usoo helo r maxaa lagu helaa r waxaa lagu helaa r waxaa lagu helaa summation of fx all square plus summation f y all square oo root over laga bixi. So marka root over laga bixi. So marka hadda waxaan soo helaynaa summation of x kabacdina waxaan soo helaynaa summation of y kabacdina waxaan soo helaynaa r. titana waa soo helaynaa. titana maxaa lagu helaa tita waxaa lagu helaa summation of fy tita waxaa lagu helaa tan inverse summation fy oo loo qeybiyey summation of fx. simple. So iyadoo faahfaahsan waa geli doonaa hordhac then waa soo helnaa halaas weye simple weye. labada su-aal laga dara saasaan ku xalinay. Okay, hadda aan imaano summation of horizontal force ama summation horizontalka macnaha x u qaadan maadaama kan uu yahay mes x u qaadan mes y u qaadan vertical y saasaan u qaadan. summation of fx intii imaaw tee horizontal ah labadan force tee horizontal ah. forcigana of course horizontal ah. So kan ii soo qaada kan dhanka u socdaa dhanka midig ma u socdaa mise dhanka bidix. haddoo dhanka midig u socda plus waaye horaan u sheegnay. haddoo dhanka bidix u socdana minus waaye. Okay, 100 plus waaye dhanka midig u socdaa cos 30 degree. inta imaaw oo ah qaybta labaad kan waxaa waa kee la qaadanaa labadan xabo waxaan ka shaqeynaynaa horizontal force ka shaqeynaynaa. marka kana la qaadanaa maadaama kan la qaadanaa kan dhanka u socdaa sina waxa u socdaa midiga u socdaa 200 cos 60 degree. qaybta saddexaad kan qaybta u socdaa 60 degree. kan horizontal way dhanka u socdaa bidix u socdaa minus 400 cos 60 degree. Okay, kan imaaw kan dhanka u socdaa sina horizontal waaye minus 300 sin 45 degree. So meeqay keeni aan gelino 100 calculatorka aan gelino 100 cos 30 degree plus 200 cos 60 degree minus 400 cos 60 degree minus 300 sin 50 degree. xogaa marka aan ku celino xogaa qalad yar dhahay 100 oo dhanka calculatorka 100 cos 30 degree plus watana intii ma 200
200 cos 60 degree, okay, minus 400 cos 60 degree, okay, minus 300 sin 50 degree. meeqa soo baxayso 243 sorry waxaan ka tagnay meeshaan load kala yaalo oo ah minus 500 iyadana waa ilownay sorry minus 500 waa kana then minus 500 743 700 oo minus ah ujeedin marka waxaa iska dhigi kartaa 743.2 newton oo dhankan u socoto minuska calaamadaas cadeynayso so iyadan inta imaano summation of fy aan ka shaqeyno intima marka summation of y markaan summation of y qaybta koowaad haddii kana qaadanay oo horizontal ka shaqeynayna markaan vertical ka shaqeynayna waxaan qaadanaynaa 100 cos 60 degree 100 cos 60 degree simple way okay kan hoos u socdaa kan kor u socda plus ka qaadanay kan hoos u socdaa that means maxaa qaadanaynaa minus ka qaadanaynaa oo ah 200 cos 40 degree kan markale ay hoos u socdaa oo ah minus 400 cos 30 degree kan kor ay u socdaa oo ah plus that means macnaha mechanics-ka xisaabta markii laga shaqeynayo haddii aadan falaaraha iska fiirinin haddii aad falaaraha calaamadahooda iska fiirin cos 50 degree waaye haddii aad falaaraha iska fiirin waxaa waaye dhibaatadeeda leedahay so resultiga maxaa soo baxaayo resultiga soo baxaayo aan aragno resultiga summation of y meeqa waaye kusoo dhaweyna calculatorka waa niisoo dhaweyna 100 cos 60 degree minus 200 cos 40 degree okay minus kale 400 ila socotaan amalena cos 30 degree plus 300 cos 50 degree oo qaybtan socotaa iyadana waxaan shak ilmaan kuma jiro waxaan ka tagnay load caadiga oo kor u socda oo plus 600 ka waa kana iyadana plus 600 then summation of y waxaa soo baxayso 343.2 300 is equal to and summation of fy so baxayso 343.2 that means haddii positive tahay waxaa waaye upward haddii summation of fx na maxay soo baxay therefore summation of fx ama horizontal waxay soo baxay 743.2 newton oo ah dhanka mid u socdo that means waxaa laga doonayaa waxaa laga doonayaa inaan sawiro labadan xabo soo qaado tiitadeedana keeno resultantigan simple waaye waa aadayna u fududahay wax ka yar 5 daqiiqo oo loo shaqey karaa kan kor u socdaa kanna inta u socdaa xisaabtaa sheegaysa kan meeqa ay soo baxday kan kor u socdo summation of y meeqa ay soo baxday waxaa ii soo baxay 343.2 kan inta u socdana maxaa ii soo baxay 743.2 waxaa laga doonayaa waxay tahay resultanti artan r laga rabaa iyo theta so r maxaa lagu helaa summation of r waxaa lagu helaa iyadoo loo eegayo parallel law r waxaa lagu helaa summation of x square
plus summation of fy whole square gray. So summation of fx maxaa soo helnay 743.2 whole square gray plus summation of fy maxaa soo helnay 343.2 whole square gray oo square root laga bixiyey. Therefore r maxay la mid noqonay r summation of fx or summation of fy 343 square gray plus summation of fx meeqa ahayd 743.2 square gray iyadana ka bixi r waxaa noo soo baxday 818 garana waxaa saxay 818.6 Newton. So theta waxaa lagu helaa tan inverse cos waa kusoo heli kartaa theta direct sin waa kusoo heli kartaa no problem. Tan inverse summation of fy loo qeybiyo summation of fy meeqa haystaa 343.2 loo qeybiyo 743.2. Okay, then theta waxaa soo baxayso eegno 343.2 loo qeybiyo 743.2 tan inverse la dhahay bracket la furay la geliyey answerke oo la xiray waxaa soo baxayso 24.7 so almost 25 degree xitaa waa iska dhigi kartaa no problem. Okay, 24.78 so theta-na waa soo helay r-na waa soo helay. su-aasheeda halaas ahayd r meeqaa soo helay sawirkan inkastoo wacaya in ugu dambeeyo 6 Newton soo helay. theta-na waxaa soo helay theta waxay lamid tahay 24.78 degree. So maanta example-keena halaas ayuu nooga egyahay. xoolihi ayaa rabnaa inaan u socono ilaa iyo at least 10 chapter inaan ku barbarayno insha allah. cashirkan ugu xigo wuxuu noqon doonaa syllabuskan raacinay. isaguna wuxuu noqon doonaa equilibrium condition oo lagu apply gareynayo reactionada soo socdo. reactions ayaa la heli doonaa trans then point loadiska ayaa lagu heli doonaa insha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin. fadlan subscribe, like, share, comment, positive comment. aad iyo aad u mahadsantihiin insha allah.